لاعب كادونك ugu fiican wuxuu noqday Ousmane Dembele kaasoo ku guuleystay Ballon d'Or-ka laacibkan wuxuu noqonayaa laacibkii labaad ee Muslim ah ee ku guuleysta biladan laacibkan hadal uu jeediyay hooyadiis ayuu wuxuu ku yiri nolosha waa ii soo dulqaadatay nolol adag ayaa soo marnay familkii aniga emotional ayuu noqday laacibkaas asagoo ooynaya hadaladiisa qeyrada ka muuqatay inuu u qalmay ayuu meesha ku soo bandhigay familkiisa ee asaga rafaad ay soo mareen laacibkan boqol konton iyo shan ciyaar ayuu wuxuu ku maqnaay dhaawac laacibka noloshiisa inta badan ku soo qaatay dhaawac markuu ciyaarayo kubadda cagta ayaa haatan sanadkan noqday sanadkii uu fiicnay ee waayihiisa Champions League ku guuleystay Paris laacibkan noqday laacibkii uu fiicnaa sanadkii la soo dhaafay laacibka labaad ee kaalinta labaad soo galay ayaa noqday laacibka da'da yar ee Barcelona Lamine Yamal laacibkii labaad oo la tartamayo oo waliba Muslim ah ayuu noqday laba laacib oo muslimiin ah ayaa ku tartamay bilada Ballon d'Or-ka 2025 inaba caadi ma ahan sidoo kale kaalinta saddexaad waxa soo galay oo aan laga filaynin Vitinho laacibka Paris ee da'da yar Rafinha ayaa asagana soo galay kaalinta afraad ee Barcelona kaasoo laga filayay kaalinta saddexaad lagu qiyaasay laakiinse Vitinho ayaa kaalinta saddexaad soo galay Ballon d'Or-kana sanadkan ninkii uu qalmay ayaa la siiyay marka waxa leenahay hambalyo Ousmane Dembele